badan waxaa la aaminsanaa lacagaha ugu badan in laga sameeyo filimada Hollywoodka, shirkadaha waaweyn ee 500 Fortune iyo telefishinada waaweyn. Warbixinta cusub ee soo saartay Forbes Content Creators 2026 ayaa waxay sheegtay in 50 qofood ee hal abuurayaasha dunida ugu waaweyn ee hal san gudahooda ay ku sameeyaan lacag ka badan $1 bilyan. taasi waa lacag ka badan miisaaniyad dowlado badan. waxaase ka siiya badan dadkaasi ma aha fanaaniin ama jilayaal Hollywood ah. waxay yihiin dad kaamiro hortooda soo fadhiistay ayaga oo qolobkooda jiifka ku jira. su-aasha isweydiinta mudan ayaa waxay tahay sidee ayay u sameeyeen, maxaase aynu ka baran karnaa? warbixinta Forbes ee Top Content Creators 2026 waxay ku sheegeen 50 content creator ee ugu sareysa inay sameeyaan lacag $1 bilyan ah, laakiin anaga waxaan ka soo qaadan doonaa 10 ugu sareysa. aan ku bilaabno lambarka 10aad waxaa ku jirta Cody Sanchez. markii aad maqasho content creator waxaa kugu soo dhacaya vlog ama comedy oo shactira ah, laakiin Cody Sanchez oo ay ka duwan tahay taas waxay dadka bartaa hal fikrad oo kaliya ah. ha bilaabin ganacsi cusub ay iibso mid hore u shaqeynaya. waxay sharaxdaa sida loo iibsado ganacsiyada yarka ah, tusaale ahaan vending machineska, car washeska iyo waxyaabaha la midka ah. sanadkan waxay Forbes u sheegtay inay sameysay $31 milyan. lacagtaas badankeedana kama imaan YouTube-ka oo waxay ka sameysay koorsooyin ay sameysay, shirkado ee maalgashi ku sameysay iyo ganacsiyo ay leedahay. casharka ugu horeeya ama casharka Cody Sanchez aan ka baranayno waa in content-gaaga uu horseedaa dadka hal ee lacag ku bixiyaan. lambarka 9aad waxaa ku jira Mike Rober, Top 10 Content Creators 2026. waa injineer ka soo shaqeeyay hay'adda cirbixiyaanada Mareykanka ee loo soo gaabiyo NASA. waxay dadka inta badan u yaqaanaan ninka sameeya tijaabooyinka sayniska ah ee fiyuuska badan hela, laakiin sirtiisu taas maaha. wuxuu leeyahay shirkad lagu magacaabo Range Labs, taasoo carruurta dunida ku nool ee u diraan agabyada ama sanduuqyo lagu barto engineering-ka. Forbes waxay sheegtay in sanadkan Mike Rober uu ka sameeyay lacag dhan $30 milyan. casharka aan ka baran karno waa aqoonta naftirkeeda ayaa badeecad noqon karto, oo ah in aqoonta naftirkeeda la iibgeyn karo. lambarka 8aad waxaa ku jira nin aad caan u ah oo dadka inta badan ay yaqaanaan Ashow Speed. dadka inta badan waxay u yaqaanaan wiil iska qeeliya oo game-na ciyaara, laakiin sidaas ma aha. Ashow Speed waa brand caalami ah. wuxuu la kulmay dadka dunida ugu caansan sida Cristiano Ronaldo iyo wuxuu la shaqeeyay shirkado aad u waaweyn. dadka ku xiran waxa soo jiitay kaliya maaha gamingkiisa ee waa tamartiisa iyo xamaasadiisa. casharka aan ka baran karno waa dadka inta badan qofka ayay raacaan inta aysan raacin contentigiisa. lambarka 7aad waxaa ku jira Drusk, oo ah nin aad dadka ugu qososiiya, sidoo kale dadka majaajilooyin u sameeya. qosolkiisa ayuu ninkan wuxuu ku helay sanadka inuu sameeyo lacag dhan $20 milyan. laakiin qosolkiisa gadaashiisa waxaa ku jira malaayiin dollar oo shirkado waaweyn ay ku bixiyaan. shirkadaha waaweyn ayaa ku tartama inay ninkan u sameeyo xayeysiis. sidaas darteeda casharka aan ka baran karna kaliya waa majaajilada naftirkeeda loo bedeli karo meel dakhli xooggan oo lacag laga soo sameeya. lambarka 6aad Charli D'Amelio waa gabar 2020kii kusoo caanbaxday TikTok-ga iyadoo sameynaysa qolka ciyaarka, balse markii dambe isku beddeshay inay ka shaqeyso fashion, sidoo kale ay noqoto brand ambassador. gabadhaasi waxay ka faa'iidaysatay caanimadeeda ee TikTok-ga ah. Forbes dakhligeedana waxay ku qiyaastay $18 milyan sanadkan. haddaba fursadda waa albaabka ugu horeysa, waxayse ku xiran tahay sida adiga aad ugu faa'iidaysato. marka meesha cashar waxaan ka baran karnaa ah qofka hadduu fursad helo ama albaab u furmo, habka uu faa'iidaysan karo waxay ku xiran tahay asiga. lambarka 5aad waxaa ku jira Rhett and Link. waa laba nin oo saaxiibo ah kuwaasoo muddo 15 sano ah soo bandhigayay barnaamij. weligooda caan ma dhaqan hal maalin, sanadna caan kuma dhaqan. waxay shaqaynayeen muddo 15 sano ah. waxayna leeyihiin barnaamij la dhahayo Good Medical
morning oo loola jeedo subax khiyaali ah oo micnaheedu ay tahay in subaxan aad arkayso waxyaabo laga yaabo. Barnaamijyada inta badan ay sameeyaanna waa waxyaabo khiyaali u badan ama waxyaabo la yaab leh ayay u badan tahay. Lacagta sanadkan ay sameeyeen waxaa lagu qiyaasay 37 milyan. Cashirka aan ka barnayna waxaa waaye in joogteyntu ay ka weyn tahay ama ay ka adag tahay caannimada naftirkeeda. Lambarka afraad waxaa ku jira Mark Breyer, kaasoo markiisii hore YouTube-ka soo dhigi jiray content oo gaming ah, kadibna wuxuu u gudbay film soo saarista ee dhanka Hollywood-ka ah. Sidoo kale wuxuu soo saaraa podcast, wuxuu kale uu leeyahay ganacsiyo. Dakhligiisana waxaa lagu qiyaasaa 38 milyan oo dollar. Cashirka aynu ka baran karno waa qofka content creator-ka ah inuusan ku ekaan hal shay, uu barto xirfado kale si uu ugu sii gudbo meesha uu joogo. Lambarka saddexaad waxaa ku jira Steven Bartlett. Wuxuu ku bilaabay podcast-iga, haddana podcast-giisa wuxuu ka mid yahay podcast-yada dunida ugu waaweyn. Waa Diary of CEO. Wuxuu wareystaa maalqabeennada dunida, dadka guulaystay iyo dadka madaxda soo noqday. Kaliya kuma eka podcast-gii uu ka bilaabay shaqada ee wuxuu leeyahay shirkado, sidoo kale wuxuu maalgashadaa startup. Dakhligiisu waxaa lagu qiyaasay 52 milyan oo dollar. Cashirka aan ka baran karno waa kalsooni dhis. Marka hore lacagta iyada ayaa ku soo raaci doonta. Lambarka labaad waxaa ku jira Jarman. Waxaa laga yaabaa inaad muuqaaladiisa mid ka mid ah aad daawatay. Sheeko gaaban, cashir weyn, malaayiin views ah, boqolaal shaqaale ah. Haddaba dakhligiisa ninkan waxaa lagu qiyaasaa 65 milyan oo dollar. Waxaan ka baran karnaa in dadka ay aad u xiiseynayaan sheekooyinka casharka leh ka hor xayeysiinta. Sidaas darteeda sheekooyinka gaagaaban naftirkooda waxaa u bedeli kartaa meel aad fariintaada ku gudbiso. Lambarka koowaad yaa is leedahay waad ogtahay, waa garanaysaa. Intaadan kuu sheegin faalada hoose ee commentiga kusoo qor. 2 second ayaa haysataa. boqorka hal abuurka dhaqaalaha ee digitalka MrBeast sanadkan wuxuu sameeyey 300 milyan oo dollar. Sirta maxaa isleedahay YouTube miya? Sirtiisu waa wuxuu leeyahay 5 shirkadood waaweyn oo ganacsiyo ah, shirkad ka shaqeysa shukulaatada, shirkad oo ka shaqeysa gaming. Waxaa cajiib ah inta xogta baaraya aan ku arkay in uu leeyahay shirkad investment ka shaqeysa. Haddaba sirtiisu ma aha YouTube ee waa ganacsiyada uu leeyahay, ganacsiyadaas ay lacagta badan ugu soo xaruntaa. Laakiin YouTube-ka waa magnetka dadka uu ku soo jiito. Taasi waa sababta uu u yahay boqorka hal abuurka dhaqaalaha ee dunida. Gabagabadii, marka aan fiirino warbixintan guud ahaan waxaa ka muuqanaya in views kaliya aysan ahayn meesha lacagta badan laga sameeyo. Marka hore waxay sameeyeen content, waxay abuureen kalsooni, kadib ay waxay abuureen shirkado ganacsi. Haddaba cashirka ugu weyn aan ka baran karno warbixintan waxaa waaye mustaqbalka ma aha in aad shaqo hesho. Mustaqbalka shaqada waa inaad bulshada qiimo u abuurto, kadibna aad dhisto brand iyo ganacsi adiga ku gaar ah. Haddaba adiga haddii maanta lagu siiyo fursad aad hal nooc oo content creator ah ku noqoto, maxaad dooran lahayd? Fadlan inoogu reeb qaybta hoose ee commentiga.